kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe saar kumbeelka furudda wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo khamiis ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ciidamo ku heyba madaxweyne farmaajo ayaa hubkii ugu badnaay abid loo qaybiyey islamarkaasina xildhibaan caan ah ayaa runta u sheegay madaxweyne farmaajo ciidamadii ay dowladda federaalk soomaaliya geysay xuduudda beled xaawo oo hub loo qaybiyey xildhibaan mahad salaad ayaa bartiisa gaarka facebooka ku qoray hubka farmaajo maalin walba gedo u daabulayo galmudug muu wax ka siiyo shabaabka ha isaga xureeyaane ayuu yidhi sidoo kale waxa uu sheegay in ciidankani ay u badan yihiin qoyska madaxweyne farmaajo qoys hubkii iyo hantidii qaranka lagu naasnuujinayo soomaali horay ayay u soo aragtay lamana mahadin ee maxamed farmaajo ha loo sheego ayuu yidhi mahad salaad laba maxamed maalmaha u kala duwan magacoo la bedasho iyo maqsuudkane ka wada siman yihiin taasoo ula jeedo maxamed siyaad barre iyo maxamed farmaajo oo isku hayba islamarkaasina iminka ciidamadii maalin dhowad laga dejiyay halkaasi ayaa waxaa loo qaybiyey hub aad u fara badan ciidamo nooc cusub ahay oo isniintii ay dowladda soomaaliya ka dejisay garoonka doolow ee gobolka gedo ayaa loo qaybiyey hub waxaana loo daabulay degmada beled xaawo ee xuduudda soomaaliya iyo kenya ciidamadani oo dareeskoodu ka duwan yahay ciidamada kale islamarkaasina ku labisan dhar cagaaran ayaa wararku sheegayaan inay yihiin ciidamadii qarsoodiga ahaa ee lagu soo tababaray dalkaasi eritrea waxaana warar kala duwan ka soo baxeen waxa ay ciidamadaasi yihiin iyo qaybta ay hoos tagaan islamarkaasina aan si rasmiya loo ogeyn qaybta ay hoos tagaan hub cusub oo isugu jiro qoryaha fufudud ee AK47 iyo dabajeexiyo iyo sidoo kale baasuukiyaal ayaa loo qaybiyey ciidamadani waxaana la geeyey xuduudda soomaaliya iyo kenya beled xaawo oo ay ka howlgali doonaan xiisada ka taagan degmada beled xaawo ayaa waxaa la sheegayaa inay qarka u saaran tahay inuu dagaal ka dhex qarxo labada dal waxaana dhanka degmada mandheera ee xuduudda kenya abaabul dagaal ka wada ciidamo uu wato cabdirashiid janan arrintani ayaa kusoo aadaya iyadoo shirkii igad ee dalka jabuuti lagu heshiiyey dowladda soomaaliya dowladda kenya inay xiriirkooda dib u soo celiyaan islamarkaasina wax walba ay xaliyaan si kastaba ha ahaatee xildhibaan mahad salaad ayaa kashifay in ciidamadani ay ku heeb yihiin madaxweyne farmaajo islamarkaasina hubkii ugu cuslaa abid ayuu siiyey lacagtii qarankana waa uu ku bixiyey waxa uu yidhi sidoo kale hubkan uu siinayo beeshiisa mowsiya galmudug si ay shabaab isaga xurayso dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo warbixin ka dhagaystay guddiyada dib u eegista dastuurka qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo kulan la qaatay guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa tilmaamay muhiimadda dastuur dhammaystiran oo u leeyahay geedi socodka siyaasadeed iyo dimuquraadiyadda ee dalka soomaaliya madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey guddiga dastuurka shaqadii wanaagsaneed ee saddexdii sano ee lasoo dhaafay ay kasoo qabteen qabyatirka dastuurka iyo heerka wanaagsan ee ay soo gaarsiiyeen waxa uuna adkeeyey sida ay dowladda uga go'an tahay hirgelinta dastuurka dhammaystiran dhankooda guddiga dastuurka iyo wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa soo bandhigtay caqabadaha ku xeeran dhammaystirka dastuurka iyo guulaha ay ka gaareen dadaalkoodii ku aadanaa dhammaystirkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ka guddoomay hay-adaha qaabilsan dastuurka nuqul dhammaystiran oo ku saabsan qodobadii dib u eegista ay ku sameeyeen iyo habraacii lagu shaqayn lahaa kulankan waxaa ka qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble wasiirka wasaaradda dastuurka mudane saalax axmed jaamac guddoomiyaha guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka mudane cabdi xasan cawaale qaybdiid guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka mudane maxamed daahir afrax iyo xubno ka tirsan labada guddi xog xasaasiya midowga musharaxiinta mucaaradka oo farmaajo ku calaamadeeyey qaswade soona soo saaray baaq culus islamarkaasina sheegay in meel loogu soo wada horjeysto leeskana qabto kulankii xalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa iminka waxaa leysku wada raacay in madaxweyne farmaajo meel loogu soo wada jeesto waa qaswade madaxweyne farmaajo war-saxaafadeed ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa lagu cambaareeyey go-aanka ay guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka ay ku iclaamiyeen jadwalka doorashooyinka heer federaal golahu wuxuu tilaabadani u arkaa bilowgii boobka doorashooyinka heer qaran taasoo uu madaxweynaha ugu bareerayo abuuris xasarad siyaasadeed oo lagu burburinayo nidaamka dimuqraadiga oo udub dhaxaad u ah xasilooni siyaasadeed ee dalka ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay shirkii xalay qoraalka ka soo baxay musharaxiinta ayaa intaasi kusii daraya madaxweyne farmaajo ayaa dhagaha ka furaystay talooyinka golaha qaybaha kala duwan ee shacabka iyo beesha caalamka ee ku baaqaya in xal laga gaaro ismariwaaga ku aadan maamulka doorashooyinka wuxuuna go'aansaday inuu qabsado doorasho uu keligii tartamo iyo garsoore uu ka yahay asiga
qoraalkani ayaa loogu digay madaxda dowlad goboleedyada in ay ku kadsoomaan qabsoomidda doorashooyinka aan la isku raacsanayn taas oo ay hubanti la'aan tahay in ay horseedayaan xasilooni darro ka dhalata deegaanada ay maamulaan oo ah kuwa u nugul xasilooni darrada guluhu wuxuu dusha ka saaray madaxweyne farmaajo eedda natiijadii ka dhalata qabashada doorashada aan la isku raacsanayn ayaa lagu yiri qoraalka musharaxiinta islamarkaasina si weyn loogu hajabay madaxweyne farmaajo ugu dambeyntii warka ka soo baxay midowda musharaxiinta ayaa lagu yiri guluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliya dowlad goboleedyada bulshada rayidka ahi iyo beesha caalamka in ay qaswade u aqoonsadaan madaxweyne farmaajo meel looga soo wada jeesto si wadajir ahna looga hortago ficilada guracan ee halista gelinaya nabadda iyo xasiloonida dalka Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee qoraalkani ka soo baxay musharaxiintii xalay ku shiray magaalada Muqdisho oo gabi ahaanba ilaalinayay ciidamo u gaar ah musharaxiinta mucaaradka ayaa iminka dulqaadkii uu ka dhamaaday dhinaca kale guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka oo soo saaray jadwal doorasho islamarkaasina si weyn ula yaabeen musharaxiinta mucaaradka guddiga doorashooyinka heer federaal ee lagu muransan yahay ayaa soo saaray jadwalka doorashooyinka ee soo socota 2021 gaar ahaan kuwa aqalka sare iyo golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya guddiga ayaa shaaciyay in diiwaangelinta musharaxiinta doorashada aqalka sare ay bilaabanayso 26 bisha December aynu ku jirno iyagoo fursad 6 cisho ah siiyay sidii ay madaxda maamulada dalka ku soo saari lahaayeen liiska musharaxiinta taasi oo ku eg isla 29 bishan qoraalkan ay soo saareen guddiga ayaa lagu sheegay in la soo horumarinayo doorashooyinka xildhibaanada golaha aqalka sare oo ay qabanayaan baarlamaanka dowlad goboleedyada dalka sida ku cad habraaca doorashada iyo heshiiskii golaha wadatashiga qaran sidoo kale waxay sheegeen guddiga in 31 bisha December ilaa 6 Janaayo ee sanadkani cusub ee 2021 ay ku soo dhameystiri doonaan doorashada kuraasta golaha aqalka sare guddiga isagoo tixraacaya qodobada heshiiskii 17 September 2020 waajibaadkiisa shaqo ee uu golaha wadatashiga qaran siiyay gudanaya si ay dalka uga dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah wuxuuna ku taariikhaysan yahay 23 December shaacinaya taariikhda rasmiga ah ee doorashooyinka aqalka sare iyo golaha shacabka ay dhacayaan ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen guddiga waxa kale oo lagu yiri guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxa sidoo kale 7 Janaayo 2021 gudagalayaan diiwaangelinta xaqiijinta iyo tababarista xubnaha odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ahi ee ka qayb galaya xulista ergooyinka doorashada kuwaas oo lagu faahfaahiyay shuruudahooda habraacyada doorashada guddiyada ayaa ugu dambeyntii waxa uu ka dalbaday dhammaan daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka inay si hufnaan leh uga qayb qaataan tartanka doorashooyinka iyagoona soo jeediyay in kor joogayaasha gudaha iyo dibadda ay qaataan doorkooda ku aadan la socoshada sida doorashooyinka u dhacayaan si loo xaqiijiyo hufnaanta hanaanka doorashooyinka dalka waxaan rajaynaynaa in beelaha Soomaaliyeed ay kaalintooda ka qaataan howlaha doorashada xulista ergooyinka iyo ka qaybgalka tartanka kuraasta labada aqal iyadoo laga fogaanayo dhammaan wixii khilaafaad keeni kara ayaa lagu yiri warbixinta arrintani ayaa imaanaysa xilli oo meel sare marayo khilaafka ka dhashay doorashooyinka ee u dhaxeeya dowladda federaalka iyo musharaxiinta mucaaradka iyaguna gabi ahaanba qaadacay guddiga ku dhawaaqay jadwalka doorashooyinka waxayna uga sii daraysaa xiisada ka dhalatay doorashada si kastaba ha ahaatee xilli ay musharaxiinta xalay shireen ayaa madaxweyne farmaajo lagu calaamadeeyay qaswade